بيك وعان تهاي يا دوليهد كباري دماشات كمارا بسم الله ما أنت هالكن محان سكوي ماني أنا جو رير جارسه قاسهان أضياشا رير إجارة يوم قوس كان هالكن سمودل وحن هالكن عن كجه هالديني أرميه BBI iyo maaragtay nidaamkii aan ku wajihi lahayn odayaasha iyo deegaanka waxa isku raaceen BBI waxaan ka codsanay inaan ka helno waxaan ka codsanay county in ijaara county laga dhigo oo Garissa county la kala gooyo maxaa kale oo laga codsaday in constituency gaar ah la siiyo oo huluuqa constituency la dhaho arimahaasan kaga hadalnayni dadaal fara badan oo loogu jiro inay maaragtay la helo constituency-gaas ay daba socota fadhigan marka intaasaan kaga hadalnay BBI insha Allah taala hadii laga helo constituency-gaas anaga support-kayna BBI waa hor hadii la waayo waxaan isku afgaranay inaan tala isku soo noqonayno wixii kale noo furan aan ka hadlayno marka insha Allah taala intaasaan maanta isku imaanay wabillahi tawfiiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sallallahu wa barik ala ashrafil mursalin sayyidina nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam halkan waxaan sugu nimid annagoo ree ijaara ah xumid ama se dareen aan dareensannahay culays ah in oo aan ka hadlayno ama aan ka calaacalayno keeti aan codsannay tiradiisina aan keennay sida odayaashu sheegeen dadaal badanna loo soo maray waxa la wixii shuruud ahaa oo keeti lagu heli lahaa ummadda ku heli lahaydna aan samaynay in la weydaarinayo xaq darana tahay wuxuugaasaan maartay ka xunnahay rabnana inaan ku cabirno dhaqaaqanaga iyo afkanaga iyo adinkanaga waxaas oo ka xunnahay waxaan doonaynaa inaan lug bilowno masalaani state house-na aadno habeenba meel aan sii barino isagoo odaygan jiiska uu nala socdo aan rabno inaan bilna nagu qaato ama 2 bilood nagu qaatay gurigii state house inaan tagno madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa annagoo ree ijaara ah say duqeyda ka hadleen oo afafka kale uga hadleen xaq u leh in nala siiyo ijaara constituency waliba xaq u leh in county nala siiyo haddayna county jirin sabab aan ku waayi karno ma jiro constituency waan codsanaynaa sidaan oo la soo shaqeynay haddana aan doonaynaa in oo la shaqeeyo noola shaqeeyo arrintaana nagu xishmeeyo duqannagii oo mas'uulka ahaa programkan soona dadaalay dadkiisina ay dadaaleen in hal bacad lagu lisa laga dhigo sida aan ku tagno way nala xun tahay dawladda annaga mucaarad kuma nihin laakiin xaqanaga wuu maqan yahay dulmi baa jira dulmiga nooga soo baxdo madaxweynaha indhaha kala qaado maxaa yeelay ummad kasta oo meel ku nool isaga madaxweyne oo ah haddaan halkan joogno isaga madaxweyne u nahay maalinka xorriyadda la qaadiyo maantana dad u biyanahay oo dawladda raacsan marka in arrintan loo xishmeeyo oo maanta xuquuqdanaga nala siiyo aan nalooga boobin xuquuqdanada waxa aan meesha ku jirno sharci Kenya ahayn in la dhaho county wax lagu qaybini oo annaga constituency-gana ku weyna dadaalkan u soo maray waa xaq darro ma ogolin hadday dhici weydo hadda waxaan aan filanaynin oo Uhuru ka filanaynin oo Raila ka filanaynin oo dawladda Kenya ka filanaynin baan qabsaday wixii ka yimaada markaa mas'uulba ka manihin ka bilowdo hawshaasaan guda galeynaa sahaydanadan diyaarsanaynaa waxaan diyaarsanaynaa duqannaysan dameero u qaadi lahayn waan la lugaynaynaa bariijkan ka gudbaynaa Tana River intaan u qaadataba waxaan uga gudbaynaa maxaa la dhihi jiray Mwingi waxaan ogeysiinaynaa madaxweynaha haddii uu nadanaynayo aanan dadkiisa nahay in uu noogu yimaado intaanan ilaa 380 kilomitir ama 500 kilomitir masalan isu jiraan Nairobi aan la ku tagin inuu nu xishmeeyo maxay kuraagana ku jooga madaxweyne ku yahay wiilkanagi weeye dadaal badan baan u soo maray inuu nagu xishmeeyo fadhigana noogu yimaado waxaan go'aanayna uu nooga jawaabo intaas aan ka codsanayna bismillaahir rahmaanir rahiim abshir allahna waafajiyo waxaan doonaynaa san allah na siiyo xaq baan doonay xaqaan ilaahu na sii dad madulmayna dawladda ilaah xaqay na sii faatax
بعد الفاتحة هذا الكلمة بدنا نينك إنجليش كو هلا يعني سواحل كو هلا يعني صومال كو هلا أنت كو هلا أيدي هينا أنك وحرمنا ونبلحوينه وشيء حق باننا مكان حقيننا الله كينيا باننا هاي ما أنت كينيا بديرة صلاة أو هورو شيء جو ما أنت أنه أن دولة أيد سنة هاي به سنة أيد سنين داير الموي بان أيد سنين كباكي بان أيد سنة هاي أسان أيد سنة هاي أنت دولة عدالة دارنا دولة كستوي ماتو عدالة وين وين هدان رأي جارنا هاي مدحوينه وحن كا عطنينا عدالة إن تصطو عدالة إن تصطو هنقو قسم تبد على عمي أو لغلا إن أنت ميركو سو قادنو أو حفيزك عن لا إيمانو مثلا يا إلا نيروبي هنقو قسم هدان نضنيني بري عن كاي هلا جواب قلت ترى وان سو عرابينا عوض هول عن سو برينا هذا كاي تاسكويا maanta waxaan isku soo baxnay meejan taariikh 13 December reer ijaara constitution hadaan nahay waxaan isku soo baxnay maanta xuquuqta anaga naga maqan maxay nooga maqan tahay BBI arrimaha hadda soo bixin waxay jirtaa in reer ijaara hadiinto madaxweynahan Kenyatta Uhuru asoo madaxweyne Maxamed Yuusuf Xaaji inuu meejan ugu keen oo socdo waan u duceeyay odayaasha inta haraareen maalinta u duceeyaa la dheh markuu noqtay madaxweyne oo noqotay wasiir uu siiyay Kibaki waxay jirtay mar labaad haddana inuu Kibaki la imaaday oo meejan haddana odayaasha u duceeyeen waxay dhahay madarkada aabaale uu gaaray horta muuna soo booqanin taas eedaas waan kugu haasan laba jeer soo galay ijaara muxuu soo booqan waa mudnaantaas oo kala kudmee eedaas waan kugu haasanaa annaga waxaan leenahay BBI chairman annaga ka waan support gareeynin garabkiina aad markii la wareegay uu noo warramay duq maanta iga xisaabi BBI dheefti soo baxday in la dhoo ijaara waxba kuma laado aad baan aga xunna arintaas hadda wixii ka bilaawdana waan bilaawna socodka ilaa iyo stage-ka hadii kale ay madaxweyne mudano hadda galab inuu ka soo jawaabo arabta hadii kale lugti hadda soo qaadnay musaadibada odayaal kale duqay badan ajar jabsan gudi dameeraan ku soo qaadayna caaw hoolaaway jidka la shoodka jirkii kale kituwaan marayna Nairobi waka hadii kale madaxweyne noo soo jawaabay arinta waa ka xunna anaga salaamu calaykum